xaafadaha magaalada Garowe maalmahan waxa ka socday olole jeermiska looga dilayo meelaha biyuhu fariisteen si looga hortago inay ka dhashaan cudurro waxaana goobaha biyuhu fadhiyaan lagu shubay chlorine xaafada 1 Agost ayaa kamid ah meelaha shaqadaasi laga qabtay waxaana arintaasi bogaadiyay dadka xaafada Maxamed Faarax Cawl madax qaybeedka fayadhowrka degmada Garowe ayaa chlorine-ta wasakhda dilaysa ku shubay meelo kala duwan oo xaafada 1 Agost oo roobkii daay biyo fariisiyeen haddaba markii shaqadu soo dhamaatay kadib ayaa waxaa telefishinka STN uga waramay shaqada laga qabtay xaafada gudoomiyaha xaafada 1 Agost ee Garowe Cabdi Shaqo tagay bismillaahir rahmaanir rahiim galabtu waa galabnimo isniina bisha shanaadna ay tahay 2020 waxaanu olole caafimaad ka sameynay qaybo kamid ah xaafada 1 Agost runtii waxaan halkaan uga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland dowladda hoose iyo waaxda fayadhowrka oo runtii nagala shaqeeyay sidaan u heli lahayn chlorine lagu darayo meelaha ay fadhiyaan biyaha wasakhda oo mudabaadka ah oo runtii ay ka dhalan karaan cudurro xun halkan waxaa degan dad nugul oo runtii aan awoodin inay wadooyinka banaystaan runtii aan awoodin inay dawo isaga shubaan biyaha waxaanu annaga oo mas'uuliyiinta xaafadda ugu sareysay aanu u keenay dawadii lagu shubi lahaa biyaha si ay uga dhintaan jeermisku runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasaaradda naga caawisay dawadaas aanu galabta biyaha ku shubnay bulshada xaafadana waxaan ka codsanaynaa inay runtii ka shaqeeyaan in ay biyaha iska saaraan inaysan biyaha isku celin runtii qof kasta gurigiisa marka uu ciid hor dhigo waxaa xirmaya dariiqii biyuhu mari lahaayeen waxaan ka codsanayaa bulshada xaafaddu in qof kasta uu baneeyo dariiqa kaga aadan wadada si biyuhu u gudbaan haddaynu biyuhu isku celinno meeshuna ay tahay meel biyo qabad ah runtii xanuuna ka dhalan karaya intii aan la tacaali karayo ka mas'uul ahaan xaafadda gudoomiyaha anigoo ah waa ka shaqeynayaa inaan dayactirno meelahaas inaanu buuxino inaan wadooyinka banayno laakiin waxaan codsanaynaa bulshada inay gacan naga siiyaan insha Allah Cabdi Xamiid Salaad STN TV Garowe.